kusoo dhawaada warka duhurnimo ee calansida media fadlan haddii aanu ku cusubtahay subscribe sar kumbeelka furada wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo sabti ah qodobo xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog dood ka taagan cidda xilka ku wareejinaysa ra-iisul wasaare Roble iyo Khayre oo tallaabo qaadaya isla markaasina fariin xasaasi u diray ra-iisul wasaaraha cusub dalbadayna in uu rabo in uu xilka ku wareejiyo hase ahaatee arrintaasi dood ayaa ka taagan ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa la filayaa inuu si rasmi ah xilka ula wareego maalinta Axadda ahi sida aan xogta ku helayno si kastaba waxaa su'aal ay ka taagan tahay cidda xilka ku wareejinaysa ra-iisul wasaare Roble Mahdi Guuleed oo ah siihayaha xilka ra-iisul wasaaraha ama Xasan Cali Khayre oo ah ra-iisul wasaarihii hore ee ka horreeyay xilka hadda loo magacaabay ra-iisul wasaare cusub ila wareegyo lagu kalsoon yahay oo calansida media u sheegeen in Mahdi Guuleed uu qorsheynayo inuu isaga xilka ku wareejiyo Roble isaga oo horay u magacaabay guddi ka shaqeeya xil wareejinta hase yeeshee waxaa taasi dood ka qaba sharci yaqaanada iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre sharci yaqaanada ayaa sheegaya in Mahdi Guuleed uusan marnaba soo noqonin ra-iisul wasaare oo uu ahaa kaliya sii haye xilka ku simeeyay inta laga helayo ra-iisul wasaare cusub sidaa daraaddeedna xilkani ay tahay inay isku wareejiyaan labada ra-iisul wasaare ee isaga dambeeyay sidoo kale Xasan Cali Khayre ayaa sida aan ogaanay warqad rasmi ah u qoray ra-iisul wasaare Roble kuna ogeysiiyay madaxweynaha guddoonka labada aqal iyo maxkamadda sare ee dalka taasi oo ugu sheegay inay tahay in isaga uu xilka ku wareejiyo Roble taasina ay tahay sifada sharciga ah iyo sidoo kale waxa uu sheegay inuu hayo dokumentiyo sir ah oo dalka uu leeyahay Khayre ayaa sidoo kale sheegay inuu doonayo in xogo dokumentiyo ah qaranka ku saabsan inuu ku wareejiyo ra-iisul wasaaraha sida sharciga ah golaha shacabka uu ansixiyay dastuurka ku meel gaarka ah ayaa qaba in ra-iisul wasaaraha marka uu iscasilo ama xilka laga qaado inuu xilka ku wareejiyo ra-iisul wasaaraha la soo magacaabo taasi ay ahayd arrin soo jireen ahi tan iyo markii dastuurka la ansixiyay 2012 balse waxay u muuqataa in sharcigani iminka la dhinac mari doono doodan ayaa waxaa soo afjari kara Roble oo dooran kara cidda xilka ku wareejinaysa balse ma cadda haddii uu dalban doono Khayre taasi oo macnaheedu yahay inuu ka hor imaado madaxweyne Farmaajo si kastaba ha ahaatee ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa dalbaday in Master Roble uu la kulmay isla markaasina ka hor intaan xilka lagu wareejinin halkaasi ay ka wada xaajoodaan dhinaca kale muxuu yahay heshiiska ay gaareen Koonfur Galbeed iyo Puntland madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo maalmahanba ku sugnaa Baydhabo ayaa faahfaahin ka bixiyay heshiis uu la gaaray dhigiisa Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen Dani oo ka hadlayay munaasabada soo dhaweyn ah oo loogu sameeyay qasriga madaxtooyada Koonfur Galbeed ayaa sheegay inay labada dhinac ku heshiiyeen horumarinta iskaashiga amniga ganacsiga isdhexgalka bulshada iyo dawlad dhiska iyadoo Puntland wixii aqoon dawladnimo iyo shuruuc ah ku taageeraya Koonfur Galbeed waxaan u baahanahay in nidaamyada sugidda amniga fulinta sharciga dhisidda kaabayaasha dawladda in la iska kaashado Puntland waxay ku dhaanto Koonfur Galbeed inay ku taageerto haddii ay ahaan lahayd shuruuc tababarta kuleen inay gacan ka geysato sidii Koonfur Galbeed cagaheeda ugu istaagi lahayd ayuu yiri madaxweyne Dani sidoo kale wuxuu intaasi ku daray inay muhiim tahay in laga wada shaqeeyo danaha guud iyo iskaashiga ka dhaxeeya labada maamul ugu dambeyntii wuxuu ka mahad celiyay soo dhaweyntii ay u sameeyeen madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo shacabka ku dhaqan magaalada Baydhabo Koonfur Galbeed iyo Puntland ayaa wadaaga xiriir ganacsi iyada oo dad ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed ay ganacsiyo ku leeyihiin magaalooyin ka tirsan Puntland xog xasaasi ah Cumar Finish oo kulan isugu yeeray xildhibaanada iyo wasiirada beesha Hawiye isla markaasina sheegay in ay ka tashan doonaan 13 kursi ee magaalada Muqdisho ay xaq u leedahay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamed Cumar Finish ayaa kulan aan la shaacin isugu yeeray xildhibaano ka tirsan labada gole gaar ahaan kuwa beesha Hawiye sida ay ogaatay calansida media Cumar Finish ayaa xalay kulan casho sharaf ah isugu yeeray xildhibaanada beesha Hawiye ku metela labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kaasi oo ka dhacay hotel ku yaala magaalada Muqdisho martiqaadka gudoomiyaha ee kulankaasi ayaa xildhibaanada loogu kala diray fariimo loogu wargelinayo sida ay ogaatay calansida media xildhibaano ka qayb galayay kulankaasi xalay sida aan warbixinta ku helnay kulankaasi ayaa looga tashaday 13 xubnood ee matalaada gobolka Banaadir oo horey loogu canaantay inuu Cumar Finish kaga hadlin shirkii Muqdisho ee ka dhacay fila Soomaaliya isla markaasina eedeen xoogan loogu geeyay landahayne Cumar Finish waxa uu matalayaa gobolka Banaadir hase ahaatee shirkii Muqdisho muusan ku soo hadal qaadin
wuxuuna ku soo aadayaa kulankaasi xilli Cumar Finish lagu eedeynayo inuu si weyn uga gaabiyey matalaada gobolka Banaadir islamarkaasina uu magac ahaan uga qayb galay shirkii Dhuusamareeb 3 iyo midkii Muqdisho ee lagu gaaray heshiiska doorashooyinka 2020 oo aan marnaba looga hadlin qoondada gobolka ee uu mas'uulka ka yahay meelmarinta matalaada gobolka Banaadir ayaa waxaa weli ka taagan dood xoogan iyadoo aan arrintaasi ay meel adag iska taageen madaxweynaha Puntland iyo Jubbaland Saciid Cabdullaahi Dani Axmed Madoobe oo iyagu qayb ka ahaa ololaha lagu rabo in 13 mudane ay ka helaan aqalka sare si kastaba ha ahaatee Axmed Madoobe iyo Saciid Dani ayaa markii hore lagu eedeyn jiray in ay si weyn ugu soo horjeedaan hase ahaatee markii Muqdisho ay yimaadeen shirka uu soo dhamaaday kadibna ay la kulmeen madaxda siyaasiyiinta dhammaan waxa ay sheegeen in gobolka Banaadir ay xaq u leedahay inay helaan 13 mudane dhinaca kale waa kuma agaasimaha cusub ee Farmaajo u magacaabay warfaafinta madaxtooyada madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magacaabay afhayeenkiisa cusub ee agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya qoraal Ingiriis lagu soo qoray oo lagu baahiyay barta madaxtooyada Soomaaliya ee Twitterka ayaa lagu shaaciyay magacaabistan iyadoo lagu sheegay in Cabdirashiid Maxamed Xaanshi loo magacaabay agaasimaha cusub ee warfaafinta madaxtooyada isagoo hore u ahaa ku-xigeenka agaasimaha xilka waxaa dhawaan baneeyay Cabdinuur Maxamed oo noqday agaasima ku-xigeenka madaxtooyada siina wada xilka agaasimaha markii uu xilkaasi baneeyay Dr. Nuur Diiriye Fuursade oo xilka uga tagay khilaaf dhex maray madaxweyne Farmaajo yaasiga agaasimaha cusub ee warfaafinta madaxtooyada Cabdirashiid Maxamed Xaanshi ayaa xilka agaasima ku-xigeenka warfaafinta madaxtooyada July 2019 wuxuuna hore uga howlgali jiray diiwaan films oo baraha bulshada ku faafin jiray muuqaalo lagu taageerayo madaxtooyada filla Soomaaliya agaasimihii hore waaxda warfaafinta Cabdinuur Maxamed ayaa u rajeeyay agaasimaha cusub in xilkiisa uu alle u fududeeyo waxaan agaasimaha cusub u rajaynayaa guul iyo inuu mas'uuliyadiisa u guto si xilkasnimo leh aniga oo Ilaahay uga baryaya inuu u fududeeyo xilka culus ee loo igmaday ayuu yiri Cabdinuur Maxamed Axmed oo ah agaasima ku-xigeenka madaxtooyada filla Soomaaliya dhinaca kale shacabka Ceelwaaq oo dhigay dibadbax aad u xoogan isla markaasina ka cabanaya ciidamada Kenya shacabka ku nool degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa shalay waxa ay dhigeen banaanbax ay uga soo horjeedaan ciidamada Kenya oo dad la sheegay inay shacab ahaayeen dil iyo dhaawac u geystay duleedka degmadaasi ciidamada Kenya ayaa maalin hore tagay guri ku yaala deegaanka iyadoo oo 25 kiiloomitir dhinaca waqooyi bari kaga beegan Ceelwaaq waxaana la sheegay inay hal qof dileen 3 ruuxna ay halkaasi ka kaxaysteen hase yeeshee mid ka mid ah 3 qof oo la dilay ay meydkiisa soo dhigeen meel u dhow halkii ay ka kaxaysteen shacabka degmada Ceelwaaq ayaa dhigay banaanbax ay ku dalbanayaan cadaalad loo helo dadkii ay dileen ciidanka Kenya iyaga oo dawladda Soomaaliya ugu baaqay inay arrintaasi wax ka qabato qaar ka mid ah banaanbaxayaasha ayaa iyaga oo careysan ka hadlay banaanbaxa waxaana ay sheegeen in Kenya ay cadow ku tahay dadka Soomaaliyeed waxaana dawladda Soomaaliya ay ugu baaqeen inay degmada Ceelwaaq geyso ciidamo harmacad ahi oo horay ay u geysay degmooyin kale oo gobolka Gedo ahi degmada Ceelwaaq kama mid ahan degmooyinka gobolka Gedo oo dawladda Soomaaliya ay geysay ciidamada waxaana gacanta ku haya ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta Jubbaland si kastaba ha ahaatee shacabkaasi Soomaaliyeed ayaa iminka dawladda Farmaajo ka codsanaya cadaalad isla markaasina dadkaasi ay xasuuqeen ciidamada Kenya ilaa iyo hadda kama hadlin filla Soomaaliya maadaama ciidamada Kenya ay dad shacab ah inay qafaashaan soo dilaan isla markaasina wadada soo dhigaan